السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوا صاحب بيال ومركلي مقال عصوب مقال كنا ما تحين قال دونا ما نشرح دونا فرسمين كي قدام بي اللي جسوك دي واتساب وأي كتيران قار رمتي آذية فايدة بدن الضبط قهرين إنه قد قالنا مقال. marka horeysa hadaba inaad soo update gareysataa whatsapp-kaaga si aad u hesho dhammaan farsamooyinkan. play store-kaaga baa soo furan doontaa ama update baad tusan doontaa oo markaad whatsapp dul timaado waa inuu meesha open kuu soo dhigaa oo dee haddii kale farsamooyinkan ma heli doonta haddii aad update gareysan. haddaba farsamada ugu horeysa iyo waxay tahay uguna muhiimsan, yacni markii hore haddaynu doonayno inaynu sawir whatsapp-ka ka dirno badanaa waxaynu arki jirnay in sawiradu shucaac yeeshaan. iminka waxaad awood u leedahay sawir full HD inaad dirto oo yacni bilaa shucaaca. markaad soo furato qofka doonaysa inaad sawirkaa u dirto meesha kamerada baa ka tegi doontaa, kadib meeshan baad iman doontaa. meesha waxaa ka tegi doontaa yacni sawirka aad u baahan tahay ama fiidiyowga aad u baahan tahay inaad dirto. sawirka ama fiidiyowga aad u baahan tahay inaad dirto ayaad meeshan ka iman doontaa. markaad sawirka ama fiidiyowga kusoo dul dhufato waxaad ka arki doontaa meeshani calaamad cusub oo HD meesha sarwad karkasta HD. iminka yacni haddaynu sawirka soo dhaweyno saa nii tuso sawirka haddaan soo dhaweyno marka arkasaan sawirka yacni shucaaca buu leeyahay. meesha HD haddaan ka taabtoon HD quality yidhaahdo saa arkasaan badda ama si toosaad u arkasaan dhammaanba sawirkii shucaaci uu ka baxay oo yacni sawirka sidaasay u diri doontaa yacni sawir full HD. soo kale fiidiyoyaduna waa la mid oo iyagana fiidiyowada full HD waa diri kartaa, laakiin laga yaabaa sawirada qaar imka sida sawirkan oo kale haddaynu ku eegnaba dee wuu diidayaa. markaa qaarkood aan dee quality-gu waxba iska bedeli karin baa jira, balse badanaa imika hadda yani sawirada shucaaca loo dhan waad ku diri karaysaa qaabkaa fudud. sidoo kale farsamada kale yanda lagu soo kordhiyaya waxay tahay markaad yacni fariin whatsapp qof uga qorto markii hore awood maad lahayn fariinta inaad dhaligareysa mooye yani inaad fariinta wax ka bedesho. iminka waxaad awood u leedahay inaad yacni fariintaa edit gareyso oo qoraal dheer u qortay aad wax alaali waxa doonto ku bedesho. fariinta markaad taa ugu dirto kaliya 3 dhibcood ee geeska midig yeelan baa taaban doontaa, edit baa odhan doontaa. meesha waxa alaaliya waxa doontid ayaad yacni ku bedelaysaa. markaa yacni haddii wuxuu ku arki doonaa meeshana qofkuna meesha hore oo soo ku arki doonaa in fariinta la edit gareeyay balse fariintii hore ma arki doono. farsamada kale iyadana lagu soo kordhiyaya waxay tahay kaliya waxaynu awood u lahayn meesha codka haddaynu taabanno yacni dee inuu cod un aynoo duubmo aynaan wax kale awood u lahayn. balse farsamadan cusub ee muhiimka lagu soo kordhiyo whatsapp waxay tahay markaad taabato meesha codka hal mar muusaa u taabato waxay isku bedelaysaa qaab fiidiyowga. yacni fiidiyowgan waxaad awood u leedahay inaad fiidiyow lixdan sikin soconaya aad duubato oo yacni meeshan 6 sikin fiidiyow soconaya baad awood uga leedahay inaad duubto. sidoo kale calaamadda ayar baad uga bedeli kartaa haddaad rabtid dee kamerada qaybta hore inaad duubto calaamadda baad uga bedeli kartaa. sidoo kale haddaad rabtid inaad delete gareyso qaabka codka unbaad u tuuri doontaa. mar labaad haddaad doonaysid yani inaad duubato qofkii u dirtana qaabkii codka loogu diray unbaa u diri doontaa. markuu doonayo qofku inuu furo eegana hadduu ku dul dhufto qaabkaabay ugu soo weynaan doontaa. whatsapp haddii aad doonayso yani inaad qof mobilka gudihiisa wax ka dhex tusto ama aad uga sharaxdo ama sidoo kale sawirro galerigaaga kugu jira ama wax kaloo gaar oo mobilkaaga ku jira aad qof aan kula joogin yani tustusto yani qaab toos oo qofkaas u arko inaad haddii aad doonaysid kaliya markaad whatsapp-kaaga soo furato waxaad tegi doontaa qofkaas kadib video call baad ku qaraaci doontaa. call baad qofka ku qaraaci doontaa yani qofkaasina waxaa qasaba inuu haysto whatsapp-ka caadiga oo yani weli whatsapp badan moodka badanaa kuma shaqeynaysa farsamadani. qofkaas markuu yani saa kaaga qabtay video call-kii toos ku arkasaan meeshan waxaad ku arkaysaa calaamadda mobilka ee falaadheer dhex saaran tahay ayaad ku dhufan doontaa. calaamadda markaad ku dhufato startna baa odhan doontaa yani qaabkaayu wax walba oo mobilkaaga ku saabsan ama option walba aad gasho ama sawirka ama meel walba aad tagto si toosa buu yani qofkaas uga arki doonaa mobilkaaga gudihiisa oo yani wax walba ama uga sharaxi doontaa ama waxyaaba gaara oo shakhsiyana u tusi doontaa. farsamada kaleedana lagu soo kordhiyay waxay tahay yani waxaad awood u leedahay inaad log ku xidhato hal jaad yani qof kaliya inaad log ku xidhato oo qofka aan cidina geli karayn oo yani the fingerprint-kaaga intaad ku xidhato qofka aad fariimihiisa kaliya aad u akhrin doonto markuu message kuusoo dirana aan laga arki doonin yani qaybta notification-ka ee kaliya aad markaad qofka u baahato unaad dhex geli doonto. markaad soo furato qofka lale qofka aad u baahan tahay hoos baad usoo wadi doontaa
meesha chat lock ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa. chat lock markaad timaadid lock with fingerprint ayaad ku dhufan doontaa, kadib meeshana fingerprintkaaga ayaad gashan doontaa. imika haddaynu fiin idhaahno waa kan oo yani locker chat weyn halkaas inoogu jira imika marki doono. marka yani haddaad doonaysin aragtidna san baa usoo raxjin doontaa ama kor baa usoo jiidi doontaa, meeshana locker chats baynu ka arkanaa. waxaad ku geli doontaa yani fingerprint koos kama geli karaysid. fingerprint markaad ku gashid yani meeshan ayaad qofkii chatka ama fariin ugu diri kartaa ama fariimiisa aad gaar karaysaa. soo kale haddaad rabtid inaad iska xidhana chat lock maad ku noqon doontaa, kaliya waad iska xidh doontaa, fingerprintkana waad gelin doontaa. sidoo kale waxaad imika awood u leedahay haddii aad u baahan tahay number aan kuu save garaysnayn inaad la xidhiidho ama aad message ama fariin u qorto ama soo kale garaacdaba, yani de markii hore waxaa qasabay inaynu application soo isticmaalno ama aad numberkaas save garaysato. iminka kaliya waxaad tegi doontaa qaybta chatskaaga, calaamada meesha laga wax search gareeyaad ku dhufan doontaa, kadib numberka ayaad ku qori doontaa haddii aad xafisan tahay, haddii kalena dee aad soo copy garaysatayna waad ku bastagaran doontaa. si toos ah meeshan chatkaa siin doonaa, meeshan dee qofkii waad ka garaaci karaysaa, soo kale fariin baad ugu qori karaysaa adigoo numberkii save garaysan. sidoo kale imika waxaad awood u leedahay WhatsApp, yani fariimaha lagaaga soo diray marka hore waxaa qasabayd mar walba dee waxaa qasabay inaad fariintaa aragto oo qaab notification ahaan ay kugu soo dhacdo. imika waxaad awood u leedahay yani fariimaha notification ahaan kugu soo dhacaya inaan la arki karin ama aan la akhrin karin aad ka dhigato. 3 dhibcood ee geeska midiga baad tegi doontaa, settings baad ka tegi doontaa, privacy baad ku sirfan doontaa. privacy markaad timaadid hoos baad soo wadi doontaa, meesha ay ku qoran tahay fingerprint lock ayaad ku dhufan doontaa. meesha fingerprintka baa furi doontaa, kadib meesha show content notification, meesha show content notification ku qoran tahay baad iska xidhi doontaa. yani fariin kasta oo WhatsApp lagaaga soo qoro ma arki doontid, kaliya waxaad arki doontaa yani message hal fariin ayaa lagu soo diray ama wixii lamid ah. WhatsApp dhanka gruubyada waxaa lagu soo kordhiyey, yani markii hore haddaynu doonayno group dad kusoo darno kaliya qofka adminka ama dadka adminka unbaa awood u lahaa inay dad kusoo daraan. iminka waxaa qofka adminka awood u leeyahay inuu dhammaanba u furo dadka ku jira inay dad kusoo dari karaan. iminka yani groupkan update WhatsApp ay ku qoran tahay, haddaynu eegno waxa adminka inaga yani ad participate waa arkaysaa oo qof aynu kusoo dari karana. kaa kalena waa gb WhatsAppkeena. imika haddaynu tagno, haddaynu nimaadno isagana yani sadarkasaan cid kagama soo dari karno oo admin kama nihin. haddaba hadduu adminku inoo furo da waynu ku dari karnaa. haddaynu usoo furno imika, marka yani groupka sar u timaadid settingska baad tegi doontaa, meesha waxaad ku arki doontaa meel cusub ay ku qoran tahay add other participants, meeshaasi baad furi doontaa. kadib yani qofka adminka imika de waa kan inagoo groupkii adminka ahayn oo aynu awood u leenahay inaynu add participants nidhaahno oo aynu dad kusoo darno. soo kale imika waxaad awood u leedahay WhatsApp haddii uu kaa soo waco number aan kuu save garaysanayn ama aanad garanayn inaad iska xidhi karto in yani number kasta oo aan kuu save garaysanayn uu kusoo galo. yani numberkaa keliya callkaa waxaad ku arki doontaa qaybta callska ama notification ayaa kusoo dhici doona, yani tusaalan hebel ayaa kusoo wacay, balse yani qaab call kuma soo gelin doono. si aad iyadana iskaga xidho 3 dhibcood ee geeska midiga baad tegi doontaa, settings meesha ku qoran tahay waad ku dhufan doontaa, privacy hoos baad soo wadi doontaa, meesha callska ee optionka cusub baad ku dhufan doontaa, meesha waxaad furan doontaa meesha ku qoran tahay silence unknown callers, yani kuma soo gelmi doono oo yani callkaas automatically silence buu noqon doona, aamus doona ama kuma soo gelmi doono. farsamooyinka muhiimka ba aad iyo aad ka u faa'iidada badan leh ayaa lagu soo kordhiyay WhatsApp. inaad aad iyo uga faa'iidaysanayaan filaya fadlan dadka boqoshadeeda ku subscribe saar, videogana like saar, aad iyo aad baad mahadsantahay.